Aqalka Koongareeska ayaa loo gudbiyey warbixin si waafi ah u soo bandhigaysa muhiimadda ay leedahay inuu Maraykanku aqoonsado Somalilan. Warbixintan ayaa lagu xusay ugu horeyn xasiloonida Somalilan iyo in nidaam ahaan iyo dhaqaale ahaanba Somalilan ka hormartay Soomaaliya. Waxaana intaasi ay raacisay in muhiim ay tahay halka ay Somalilan dhacdo ee marin biyoodka caalamiga ah ee Gacanka Cadmeed. Sidoo kalena waxaa warbixintu bayaamisay sida China uga xun yahay in la aqoonsado Somalilan. Guddiga dib u eegista arrimaha dhaqaalaha iyo amniga ee Maraykanka, Shiinaha ayaa warbixinta sanadlaha ah ee 2025 oo ay u gudbiyeen Koongareeska Maraykanka ku xusay tartanka Maraykanka iyo Shiinaha ku dhex maraya gobolka Geeska Afrika iyo muhiimadda siyaasadeed ee ay leedahay bugcada ay Somalilan dhacdo. Warbixintan ayaa xustay in xidhiidhka Somalilan iyo Taiwan ee xoogaysanaya ay sababeen in si cad China uu u taageero Soomaaliya si dhibaato loo gaadhsiiyo Somalilan, taasina sababtay in Soomaaliya ay mamnuucdo socdaalka muwaadiniinta Taiwan, kuna soo beegantay markii Somalilan iyo Taiwan kala saxeexdeen heshiiska dhanka ilaalinta xeebaha ah oo warbixintu xustay in horumar muhiim ah u ahaa heshiiskaasi xoojinta ammaanka badda ee mandaqadan muhiimka ah. Gabagabadii warbixinta guddigan oo Somalilan lagu xusay in badan ayaa muujinaysa dadaalada aqoonsiga Somalilan ee Maraykanka gudihiisa ka socda, iyadoo muujinaysa sida ay muhiimka u tahay in Somalilan Maraykanku aqoonsado si uu uga faa'iidaysto bugcada muhiimka u ah loolankiisa gobolka Geeska Afrika ee ay ku taal. Weri Luqmaan Maxamed Faarax, Diiraneti.